السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيبت كواد waxaan kaga tagay login anagoo soo login gareynay markasta ma aha inaa application ku buuxisid hadaa time haysato hal maalin inaa ku buuxisid maaha inta buuxisid markasta waa ka tagi kartaa waa soo noqon kartaa adoo soo nastay adoo soo seexday adoo koob shaah soo cabay maalinta kale nus qabanay nus kale soo noqonay marka login soo dhahdid qaybtii aan uga tagay qaybta koowaad wuxuu ku keenaa page-kan oo lagu leeyahay ku soo dhawow meesha halkuu ka bilaado safarkaaga guush programkaaga dooro halkaas programyada ka fiirinaysa buluuga markasta applicationada waxaa loo buuxiyaa highlight lagu suubinaa meelaha muhiimka ah oo la doonayo inaad akhrisaa ma ogaato hadda waa wada buluug inta muhiimka ah programkaaga halkaas ka dooro specific applications deadline koorso walbo ama codsi kasta wuxuu qabaa waqti la xiraayo marka adiga qaybta rabtid ilaan qof walba waxbuu rabaa inuu programkaaga marka halka ka eegato programkaaga ma la xiray mise waa furan yahay bachelor ma tahay master ma tahay koorsadee qaadanaysaa halkaas ka ogaanaysaa requirements fiiri lagu yiri shuruudaha lagu galaa fiiri general admission requirements additional requirements shuruudaha guud kuwa gaarka ugu xiran jaamacadaha qaar because qofka medicine barana engineering barana technology barana iyo koorsooyinka yaryar iyo dadka caafimaadka barana waa kala fududiyay international equivalence requirement qofka dibadda ka imaana oo aan ingiriis luqadiisa ahayn shuruudaha laga rabaa supplementary forms and documentation sharciyada laga rabo admission documentska inflow ku dir kartaa laakiin hadda online laga buuxinaa dadka waxa lala hadlaa yani wadan ku sugan my credit site 70kaasi waa ka boodaysaa halkan markaan joogo continue aan dhahayaa continue markaan dhaho wuxuu keenaa halkii aan kaga tagay intaas bas aan soo buuxiyay ani magacaan soo buuxiyay legal name-ka gal magaca oo kugu qoran TikTok-yada iyo Facebook-yada lama rabo sharcigaaga ID iyo passport-kaaga iyo dhalashadaada xaanshadaada magacyo kugu qoran halkaas ita galni aniga Yasmin aan soo galay magacaygaan soo galay middle name aan qabaa middle name-ka aabaha waaye dalkan awoowahan waxa la dhahaa surname-ka loo isticmaalaa preferred name magaca rabta in lagu yeero halkaas aniga aabahay Cusmaan la dhahaa surname-ka wadankan Maxamuud loo yaqaan awoogay magaciisa waa magaca rabta in adiga lagu yeero aniga Yasmin la dhahaa magaca la rabo in lagu yeero other last name previously magacii hore hore soo isticmaashay ma jiro not applicable ku qoraysaa halkan maxaa ku qoran admin email-kaaga waxa haasan ka haynaa mid kale ma yarta inaan ku darto telefoonkaaga halkan soo geli mobile phone ama landline mobile phone yani maxaan gelinayaa blasta 447769783554 maka tagaysid deadline dhalashadeeda hore u soo geli additional information including citizenship categories I am halkan ka dooranaysaa Canadian dual citizenship ma tahay work permit diploma status visitor temporary convenient refugee protection ma ku jirtaa kan waxay ka hadlaan dadka wadankooda jooga state applicant permanent resident Canadian citizen visa or temporary protected person state permit holder state permit applicant taha waxa tahay yani state permit applicant qof ku codsanayo inuu wax barto in loo siiyo fiiso state permit applicant la state permit applicant primary citizen wadankee u dhalatay wadanka u dhashay inta ka raadinaysaa kaliya leedahay halkaan ka raadinaysaa Somali South Africa iga tagay Somali indicate first language kaagana waa Somali are you planning on taking English language training before Dalhouse meeshaas hadda Ingiriis taqaanid nooya ku qoraysaa oo IELTS waxaysatid haddaad aqoon yes in English li barana enter the name of training provider and the course yaa ku siinaa koorsada intaada imaan dalka meesha marka kuma soconayso
because inay waxa ku diyaarsan tahay la rabaa dadaa hal sano ka hor lasoo dirsanaa oo iskoola ka gala ingiriiska ah no inaad dhahdo waa indicate current brief application Dalhousie University King's College jaamacado kale yani ama kolleejooyin kale iyadoo waxay la leedahay xiriir hadda Dalhouse hadda ka hor hadda hore usoo dalbatay intaasoo jaamacadada jira kuwaas hore ma usoo dhigatay you are considered a new applicant if you have never applied laakiin haddii aadan weligaa soo dalban waxaa tahay qof ku cusub codsigiisa ugu horreeyay hadda le Dalhouse soo dalbaday markaa shuruudahan dalbaa lagu leeyahay new applicant yaa taabanaysaa inaad tahay new applicant halkan hoose usoo degaysaa volunteer self identification are you a member of one of the following communities communitydan kee ka mid taha lagu dhahay okay Black African Nova Scotian Black African Canadian Black African aa tahay gender and pronouns kan waa jinsiyadaada female haddaa tahay gabarka female ku qoray haddaa tahay male male aa ku qoraysaa mii maqlaysaa female haddaa gabarta haddaa wiil tahayna male aa ku qoraysaa aniga female aan kusoo qoray pronounkaagana she and her haddaa gabar tahay haddaa wiil tahay he and him because dadkan waxay qabaan dad u dhashay wiil ama u dhashay gabar oo isbedelay qabaan oo aan rabin in gabarnimadii loogu wacmo wiilka aan loogu wacin marka aniga she and her ayaan leeyahay are you a member of kuwaasiit waxaa waaye mayaad leedahay LGBT iyo waxaasiit waa dadka qariban oo kale no ma ihi okay dad badan oo Soomaaliyeed waxaa jir disability qabaan haddii aad qabtid naafanimo waa lagu ixtiraamayaa naafa miyaa tahay yes haddaa dhahdid priority badan aa lahaanay because mar walba dadka disability qaba way siiyaan hadda aniga disability ma qaba no aan leh family education kaaga markasta waa tan idin sheegay has a member of your immediate household including parents ama waalidiinta personal information supporters يعني support gareynayaan inaad digrigan qaadatid su-aashan waxay naga anficaysaa inaan si fiican u fahanno dadka ku taakuleynaya yes university degree kaasaad dalbanaysaa youth in care kan waxa waa caruurta oo waalidiintood laga qaaday oo keerka ku jiraan ama qof xanuunsan oo meel lagu hayo inaad tahay no consent kan amar noo sii waay do you consent Dalhouse using self-sufficient to provide with information or support kan wuxuu qosay dadka wadankooda jooga haddii aad dhahdo cunug lahaayaan ahay qof disability aan qaba yacni departmentooyada kale kaasoo fiirinayaan consider application under equity admission consider financial awards high and scholarship kan hoosaa taabane inay kuu tixgeliyaan inay lacag ku siiyaan deeqda waxbarasho kaa bixiyaan oo scholarship ku siiyaan halkaas hoosaa ku dhufanaysaa continue aa leedahay halkaan markaa maraysa use program selection halkaan inta waxaa imaanaysaa programkaad dooranaysa if you are eligible to add second choice program marka programkaad dooranaysa program labaad waa dooran kartaa waa lagu soo casuumayaa after submitting this initial application paying your application fee degree example bachelor aa u baahan tahay select program stagigaaga marka bachelor dooratid maxaa rabtaa agriculture iska dheh hadda agriculture aan dhahaynaa and majorkaaga agriculture economics sanadkee rabtaa inaad geshid agost imi waa soo dhaaftay September 25 waa soo dhaaftay hoosii fiiri January aa ugu dambeyso kabacdi waxaa lagu leeyahay agriculture science 4 sano soconayaa ardayda loo doorto mid kamid ah 7 major programka dalbato agriculture business agriculture economics animal science aquaculture waxaas oo dhan waxay hoos imaadaan agriculture ka hoos imaadaan marka course major iyo mid oo waxa qaadanaysaa
if you are eligible second choice you will be invited. Programka dooratay iyo midka labaad aad dooratay haddii ay diyaar yihiin oo booska bannaan yihiin waa lagu soo casumaa markaad soo gudbiso applicationkaaga. Continue halkaas taabanaysaa. Additional, if you have education international agent representing you, ma cid baa ku matalayso ama kuu soo buuxisay yani xafiisyada dadka oo xafiisyada wadamada kale waxay qabaan agency oo dadka geyso oo waxaan ka shaqeysay qabaan. Anaga Soomaali ma qabna, anigana agency miya asxaanka in baa intaan ku suubinayaa laqaaya haddaan gaarin agency inaan noqono oo jaamacadaha dhow ay noo ogolaadaan ama anaga aan dalbano gooni waay oo qof wakiil ah ma ku matalay maya adiga iska buuxis friends and family information. Haddii waalidka iyo dadka adiga ku caawinayo ay rabaan informationkan wax ku saabsan in xafiiskan ka helaan halkaan soo geli emailkooda ama warkooda. Marka adiga qof qaabila ma adiga la inay ku imaato waay. Continue. Academic history muxuu yahay taariikhda waxbarashadaada. Aad iskuulkaaga halkaas